ciidankii ugu horeeyay oo booliis iyo militari isugu jira ayaa maanta gaaray degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose si ay u sugaan amniga doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo dhawaan ka dhici doonta degmadaasi. Gudoomiyaha magaalada Baraawe Dr. Liibaan Abuukar oo qayb ka ahaa mas'uuliyiin iyo saraakiil ciidankan ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Baraawe ayaa ciidanka kula dardaarmay in ay nabadgelyada sii adkeeyaan. Muhiimadda waxay tahay ujeedka ugu weyn oo u timideen magaalada Baraawe waxay tahay in ay amniga sugtaan shacabkan ilaalisaan haddii la yiraahdo. Baraawe magaalooyin badan wax ay kaga duwan tahay ayaa jiro xabado oo bilaa micno daro loo rido waa la isku xisaabtamaa Baraawe xabada waxa loogu talagalay in loo rido oo kaliya cadawga marka aragtaan iyo wax halis gelinaya bulshada waxaad ka rabnaa marka asluubtii ama dhaqankii ay lahayd Baraawe horta koow inaad qaadataan ku dhaqantaan rasaastan u ilaashataan cidda loogu talagalay aysan dhicin rasaas bilaa micno daro loo rido haddii la yiraahdo. waxaa sidoo kale soo dhaweynta ciidanka maanta gaaray Baraawe ka hadlay gudoomiye xigeenka dhinaca amniga gobolka Shabeellaha Hoose ahna kusimaha gudoomiyaha Axmed Muran. taliyaha qaybta guud ee dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ahna taliyaha qaybta gobolka Shabeellaha Hoose taliye waxaan leeyahay adiga iyo saraakiisha kale oo kula socota iyo ciidamadiinaba ku soo dhawaada caasimadda dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee degmada Baraawe. waa in jecelnahay waa in baahannahay runtii waxayna noo tahay farxad aad u weyn annagoo hal dan wada leh oo ay tahay dantaasi in qof walbaba waajibaadka maanta hor yaala ee sida uu taliyuhu sheegay doorashada iyo caleema saarka runtii golaha deegaanka ee gudoomiyahooda ugu horeeyo inaad nagala soo qayb gashaan runtii aad aan ugu faraxsanahay. ugu dambeyn taliyaha booliska Koonfur Galbeed Gaashaan Cabdi Ibraahim Shaamow ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay waajibaadka laga rabo inta ay ciidankan joogaan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. soo gaarnay degmada Baraawe waxaanu ku sugannahay garoonka degmada Baraawe ciidanka iyo ciidan ay yimaadeen inay waajibkooda gutaan doorasho ka dhici doonta ciidankan inay qabtaan shaqada ay ka leeyihiin qaranka waa amniga inay qabtaan ay u yimaadaan waa ciidan akhlaaq leh waa ciidan la soo hulay oo ciidan bulshada la dhaqan kada yaqaan loo soo tababaray iyo saraakiisha waxay ahayd horjoogayaasha ah waxaan rajaynaynaa aadankuna inaad gacmo furan hadda waad na soo dhaweysana inaad ku soo dhaweysaan